أسلم محمد سياد برا ولا دجالنتي وارون لكن تاريخ ده محي وقريبان نمك كورنيل هذا محمد كاهني ومصبيحي مركي هذليان إن بيرك كويان بدمودة تاريخ ده مركي أسلم أي وضنك أي سوق شيء الدولة محمد سياد برا دعدي تاريخ ده قدم بيساء وده حيساء سجاشن كي لا فري سجاشن كي وضنك محاك دعي وحن كلمتك أورن ما أنتينا كلمة على شيء كنت جرائد سودوينتي شلي حلبان محمد أبيب حلبان كقولها وكيل هذا لقصة دورت الجوال كأوضل مركب كوباد شعب كجوال كأوضل سدا درين كله وسود ميجي حلبان كلدورتي حكومة مدحوين بيحي أي الحسنات ديسة فرجليسي وتكون ما تنتي ملا دلنيرتا سيدا نبتقليه حضارة دي البحر مدله شلي isku soo baxay u muujiyay dareenkooda waxa dareemayay shalay in ay fariin u direen madaxweynaha iyo xukuumaddiisa in shacabka gobolka Awdal guud ahaan uu ka soo jeestay oonan ay u oolin wax rajo ah xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisaba wax rajo ah oo ay ku qabaana ayna jirin waxayna tilmaamaysaa taasi in shacabku ay shalay fariinta ay direen ay ahayd fariin cad oo ah fa'tabiru ya ulabsar waxaan leeyahay shacabka gobolka Awdal ee xisaabtamaya ee ku xisaabtamaya inayna waxba tarin xukuumadda uu hogaaminayo madaxweynaha hadda talada haya taasi waa taa kelmaddaasaan ka odhan mahadnaqaa oon u mahadnaqaya shacabkii sida nabadgelyada leh quruxda badan u soo dhaweeyay xildhibaankooda waxaan u arkaa farafaraynta xildhibaanada xasaanadda leh la doortay in xukuumaddani ay tahay tallaabooyinkii ugu dambeeyey oo khatar ah run ahaantii oo kala geynta iyo kala kaxaynta ay ku marka horeba ay ku caanbaxday xukuumaddeennan ay ahayd waxaad moodaa xukuumaddan hadda talada haysaay iyo xisbigeeduba inay u jahaysteen kala furfuridda iyo kala irdhaynta shacabka Somaliland oo aynu hari ogeyn in gobol ka mid ah gobolladii Somaliland ay hari u gooyeen imikana ay weli sida shacabka la iskaga hor keeno ay ugula jiraan kala qaybinta shacabka Somaliland waxaan leeyahay xukuumadda waxa idinku filan gobolka Awdal idinkaga filan fariinta shalay ay idin soo dirtay dhalinyarta gobolka Awdal fariinta ay idin soo direen ay yiraahdeen maya sidaad u wadiin wax maaha madaxweyne sidaad u waday si sax ma aha waa fariin cidii ay garanaysaa ay ku qoos qaadanaysa taasi waa taa inta u dhaafi maayo waxaan kelmad kale odhani xisbiga kulmiye oo noqday backgroundkiisu ay waxa ay ku faanaanay ay noqotay SNM baan soo ahayn dadkan soo kala kaxaynay dawladdii militariga Maxamed Siyaad Barre la dagaalanay waxa kaliya ay dadka u sheegaan inta ay tahay waxay soo ogeyn SNM Maxamed Siyaad Barre way la dagaalantay waa run laakiin taariikhda maxay uga reebaan nimanka korneelada ee Maxamed Kaahini iyo Musabiixi iyo markay hadlayaan inay beerka ka ooyayaan badmooda taariikhda markay SNM ay wadanka ay soo gashay ee dawladda Maxamed Siyaad Barre dhacday taariikhdii ka dambeysay ee u dhaxaysay 90kii ilaa 94kii wadanka maxaa ka dhacay korneelada imika dalka haystay shalay Maxamed Kaahini wadigii arkayay ku hadaaqayay ku hamatay 1994 ayaan Maxamed Siyaad Barre u galay buuraha cadaado iyo gacan libaax buu lahaa waa 1994 Maxamed Siyaad Barre dalka wuxuu ka tagay 1990 buu ka tagay waxa idinka dhex guuxaya walidii ku jira dagaalkii ay SNM-yadu dhexdeeda isku dagaalantay isku dishay inaad ku kala faantiin oo Soomaaliland uga dhigtiin shacabka Soomaaliland aad uga dhigtiin waxtar sidii aad idinku isku disheen ee SNM dhexdeeda isku dishay iyo hogaamiyaasha SNM taariikhdaasi waa la qariyaa waana taariikh ay qariyaan
taariikhdaasi waxay ahayd 4 sanado een 9 ka soo ilaa 9 Somaliland ka dambaysa 9 waxa dhisay dadka waxgaradka gobolka Awdal oo Somaliland isku keenay Boorama taasay ka tagaan nimanka korneyladii taas Awdal baa ka hormuudahayd oo ka talisay taay maanta madaxda ka yihiin waa tii ay ka talisay maxaan ku dhadaayay gobolka Awdal iyo waxgaradkeedu tii ay ka taliyeen ee madaxweyne cigaal la madaxweynaha ka noqday Siiraayana madaxweynaha ka noqday Muuse Biixina madaxweynaha ka noqday waa Somaliland casriga ah ee ay dhiseen reer Awdal ee nabadgelyada ay isku keeneen dadka gobolka Awdal intay isku keeneen magaalada Boorama fadhiisiyeen dawladnimadaas la harsanaya laakiin shacabka Somaliland kuma midaysna taariikhda hore SNM ma wada laha cid baa iska leh gobolkan Awdal gobolada aan taariikhda SNM kula jirin buu kamid yahay kuma jiro inima leeyihiin intii SNM hayna way isgaranaysaa ayada iska leh marka xisbiga kulmiye kaliya wuxuu taariikh ka dhigtay in ay ka dhigtaan dalkan nin aanan u soo halgamin baa madaxweyne ka doonaya madaxweyne waxa ka doonaya nin maxaan ku dhadaayay shacabka Somaliland shacabnimo aaminsan yihiin oo godobna ka galin shacab goboladan iyo Somaliland guud ahaan aw reerna dambi ka galin beelaha Somaliland ninkaas masharax wadnaa iyo masharax ku xigeen laba ninoo beej cad ay ka tahay qadiyadaha haday ku faanayaan in ay wadankani kaliya way wax soo taran ay ku faanay SLM kaliya wax soo tartay SLM kaliya wadanka wax ma soo tari waxaan nimankii waxgaradkii iyo mudakarkii gobolka Awdal baa Somaliland tan hadda taariikh u leeyahay nabadayntii Somaliland waxa kale oo soo raaca waxgaradka kale ee deegaamada kale ee Somaliland oo isugu tagay marka waxaanu leenahay warnika aan u wadnaa kursiga labadan nin u wadnaay ma aha niman godobo ka soo galay dalkani oo ku faanaya ma aha godobtii ay ka soo galeen iyo gaardaamooyinkii iyo dhibaatadii wadanka ka soo dhacday ee laga heshiiyay niman ay credit u tahay ama ay u tahay bilada ka dhiganayo doorashada ku galaya ma aha waa niman sifila waa niman shacabka Somaliland ay tahay in la tijaabiyo oo Somaliland si kala socotay tuuladu si kala go'aysa in la isku keeno niman ay ka go'antay weeyaan maxamed kaan shalay lahaa maxaa loogu ordayaa Boorama waxa loogu ordayaa Boorama hadallada Somaliland ka soo baxayay iyo qaabka dalka uu hogaaminaysiin waa qaab dalka dib u celiyay 3 sano dib u celiyay weeyaan waxana keentay hogaamintiina iyo siyaasadda isticmaalaysiin inuu nin walba tuuladiisii ku faano oo dabada geliyo siyaasadda dalka aad ku hogaaminaysiin baa keenaysa maxamed kaahinow haddaanad muraayad madow xirantiin oo idinku isku eegin muraayadaad asidatiin hadda isku eegin Somaliland ta kala oo dhan way arkaysaa laakiin idinku isma akhrisanaysiin ismana arkaysiin halka wax ku wadiin laakiin tiina ay niicad dulqaadna halkaas aad kala maraysiin in qof kasto saxafiya qof kasto siyaasiya qof kasto oo idinkas aragti ka soo horjeeda sheegay inuu bixisiin beelaha Somaliland qaarkood cadawga gudaha u bixiseen marka shacabkii Somaliland qayb cadawga gudaha u bixiseen iyad maamulaysiin marka ma inta xisbiga kulmiye aaminsan baa muwaadiniinta Somaliland hoggaanka dalka ka taliyay waxa aaminsan yahay ninka kulmiye taageerayna inuu yahay nin muwaadina ninka kulmiye ka soo horjeestayna inuu yahay qof qaran dumis oo hoggaanka maanta inaysta shacabka Somaliland waxaad ku mahadsantiin inaad garateen bariga galbeed hoggaanka idin kala kaxeeyay magacyadiina aanaysa indii kala bixiyay inaad iska qabatiin waad ku mahadsantiin waxaan say aanu markasta ku talinayaa si ayna u didin nimanka kuraasta fadhiyay oo ina doorashada uga cabsoonin in arinta cagta loo dhigo calanka kulmiyana meelaha laga lululo anu horaan igu sheegay war calanka kulmiye nimanka u lululo shacabow haddii kala bad kale ina gelinayaan way wax quus bay ka taagayeen shacabkii Somaliland diyaarna uma aha inay doorasho qabtaan inay dharaarba xildhibaan xasaanad la iska lulaan oo maalinba reer ku jihiyaan bay iyay goosteen oo ficiladooda ka muuqda waxaynu leenahay gacantaana ku hayna nabadda Somaliland gacantaana aynu ku raadino Somaliland loo dhan yahay Somaliland SNM ta sheeganaysa ma maaha taan sheegayaanu
وسوماليلاند لا wada lahaa Somaliland ina kaahin aw raadinaya iyo musabixi waa Somaliland la kala leeyahay bay raadinaya waxa weeyaan shacabow sida aad u garateen midnimadiina u ilaalinaysiin oo ilaaliya bariya galbeed haddii taariikhda SNM inta wanaagsan ay noo akhriyaan annaguna inta xun baan sheegaynaa haddii taariikhda haddii deyn waayaan inta xun baanu sheegaynaa hadday noogu faanaan oo ka dhigaan kaliya credit Somaliland wadajir baan u rajaynayaa guul baan u rajaynayaa doorashada inay u diyaar galoobaan oo ay kaadhashoodana soo dhaweystaan ay lafahooda iyo noloshooda u taliyaan cidii hogaamin lahayd noloshooda ka tin